shirweynaha nabadda ay gogashiisu taalay Warwar ayaa maanta si rasmi ah uga furmay gudaha degmada Warwar oo ah goobta loo aastay in guud ahaanba ka furmo shirweynaha nabadda. Shirweynaha nabadda ee maanta ka furmay degmada Warwar ayaa waxaa ka soo qayb galay ergo aad u baran oo ka kala socota deegaamada Buuhoodle iyo Sool iyo waliba ergooyin kale oo ka socda ururkii hubaysnaayay SSC oo xilligan fadhiya gogasha nabadda ee Warwar. xukuumadda Soomaaliland ayaan iyaduna ka maqnayn shirkan oo goobjoog ka ah oo isla markaana ay mas'uuliyiin badan ay ka marayaan iyadoo la filayo in si foolka foolana ay ula hadli doonaan dhinacyada SSC iyo ergooyinka kale ee deegaamada Buuhoodle iyo Sool ka socda ee tabashooyinka siyaasadeed qaba. munaasabadii furitaanka shirweynaha nabadda ayaa waxaa hadal kooban ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Cabdi Awdaahir Cali oo tilmaamay in ay ka go'an tahay xukuumadda Soomaaliland inay baadi doonaan walaalahooda tabashooyinka siyaasadeed qaba isla markaana ay xukuumaddu ku faraxsan tahay inuu shirkani si habsamiya u soo. Cabdi Awdaahir Cali waxa uu si ballaaran u soo dhaweeyay shirkan nabadda ee ka furmay gudaha degmada Warwar isagoo ku dheeraaday qiimaha uu leeyahay shirkani. in gobashii maanta awgaraad abshir waxa uu ahaa madaxweynuhu ku baaqay inaynu maanta oo bishu ay tahay 22 inaynu ku qabanno shirka qiimaha ee haweenka dhuubaanta ka soo qayb gashay oo lagu qabtay Warwar inagoo dhan aynu sheegno magaciisana loo bixiyay sida odayaashu sheegeen shirkii nabadda ee guuleed. afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isna tilmaamay in goob kasta oo xalka iyo adkeynta nabadda iyo waliba wada noolaanshaha bulshadu ay ku jirto in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay inay si habsamiya uga gacan geysato. qolooyinka dibadda jooga ee lacagta rasaasta lagu iibiyo soo dira fariiniga gaarsiiyo malaha waxa ka wanaagsan inay buugaag iyo dawo iyo qalmayno soo siiyaan lacagtaas. dhinacyada ergada dhaqanka ee shirkan ka soo qayb galay ayaa iyaguna tilmaamay inay soo dhaweynayaan shirkan nabadda. furitaanka shirkan nabadda oo ay ka hadleen dadweyne aad u tiro badan ayaa waxa iyaguna ka hadlay gudoomiyihii golaha khusuusiga ee ururka SSC iyo waliba Kayse Cabdi Yuusuf oo isna ku abtirsanayay ururka SSC sidoo kalena uu dibdhaxaad u ahaa qabanqaabada shirkan nabadda ee gogashiisu ay sida rasmiga ah uga furantay gudaha degmada Warwar. hadda ka hor 3 bilood ka hor waxaan tagay Soomaaliland gaar ahaan ilaa Hargeysa, Burco iyo Berbera. xukuumadda ilaa heer madaxweyne waxaan ku soo ballanay haddaad SSC bal waxaad tabanaysaa bashaanto kaale ee gobol aynu ku wada hadalno. alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa dhacday waan uga soo ballan qaaday SSC-deydii iyo madaxdeydii oo hadda halka fadhida ayaan ku raadiyey. shirkan nabadda ee ka furmay maanta gudaha degmada Warwar oo ah shir lagu xoojinayo nabadgelyada deegaamada Sool iyo Buuhoodle ayaa waxaa la filayaa inuu socdo muddo dhowr maalmood ah iyadoo si foolka foolana ay u wada kulmi doonaan dhinacyada tabashooyinka siyaasadeed qaba iyo waliba xukuumadda Soomaaliland. shirkan ka furmay maanta gudaha degmada Warwar ayaa waxa uu ka dambeeyay gogashii nabadeed ee madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu hore ugu fidiyay deegaamada Buuhoodle iyo Sool kuwaasi oo tabashooyin siyaasadeed la darisa. waxaana wejiga labaad ee shirkan uu noqon doonaa mid ay ku lafaguran ayaha mustaqbal ee deegaamadan dhinacyada ku kulmi doona shirkan kagana wada hadli doona nabadda. si kastoo hadaba shirkan maanta ka furmay gudaha degmada Warwar ayaa dadweynihii iyo ergooyinkii ka soo qayb galay waxay si ballaaran uga muuqday inay yihiin kuwa danaynaya shirkan nabadda isla markaana u hanweyn inuu shirkani noqdo mid qodobo iyo guul laga gaaro.